هو عين بعين sida ay dabayshu u qaado caleenta ayay nolosheena hadba meel u geeyaan kolka ay da'daada iyo waxa ka dhex guuxaya ay kala weyn yihiin waxaad la jaal noqonaysaa caqabado aad u badan waxaan xasuustaa kolkii aan hana qaaday أنا كنت شري مرحلة الدكسي كهوسة إنتر تواو إبلالي فكر إن يعني عريش كوين ومسكح ذي وحكجو حيي وحيابو وفربضن رنانتي ما أنت وقت جنت وجوب بدن با وحن كقاعدين شري وحنا وحقرا إنا وحعريو وحن وشعلا إنا dhiso sheekooyinka oo waxaan bas xasuustaa marka fasaxyada iskuulka la fasaxo sida break oo kale ina fasalka dhexdiisa joogi jiray sheekooyin badan iyo buugaag badan aan qori jiray waxaan sidoo kale aad u xiiseyn jiray oo hibo lahaa inaan curiyo maansooyinka sometimes waxaan oran jiray maansooyin badan oo aan meel dheerba gaadhayn waxa adkayd inaan waxayga dadka la wadaago maadaama ay da'daydu aad u yarayd mana aanan haysan family iyo dad wixii igu dhiirigeliya waxaan jeclaa inaan koro masraxyada oo waxaan ka soo bilaabay ugu horreyntiiba inaan galaaska hortiisa ka hadlo waxaan kaloo ku xijiyey inaan daabuurka dugsiga koro aan maansooyin badan halkaa ka dareeriyo haddaan galabta guud galo gacalnimadii waagii garashada ku dheehnayd maankaygu muu gabin gacaltooyadiisii guulaha u huri jiray dabadeed waxaan isku dayi jiray muddo kadib inaan ka qayb galo munaasabadaha oo ay adkaydba inaan ka qayb galo weliba waxaan samayn jiray inaan marka aan munaasabadda ka qayb galo aan baryo tababar si masraxa laygu soo dhaweeyo halkaasna aan bal dadka 2 daqiiqo ha ahaatee aan soo istaago dabadeedna aan halkaa aan kamaansoodo runtii niyadjabka ugu weynayna halkaas ayuu iiga bilaabmay oo marka aan damco inaan qofku dhaho waxaan doonayaa inaan halkaa ka hadlo dadkana wax u sheegaysaa waa dad waaweyn waa dad kaa da'weyn waa dad kaa sharaf badan waa dad kaa waaya aragsan laakiin wax u sheegay da'daas leedahay cid wax ma sheegi karaysid reality-ga ugu badan halkaas ayaa niyadjabku ugu badan aan kala kulmay dabcan way jiraan inaan marka qaarkood ka qoomoon jiray sababta ay fakarkan ii bulaalayo sababta aan hiigsigan iyo hadafkan dheer u leeyahay muddo kadib waxaan bilaabay dhowr sano kadib inaan tabaabuleysto inaan samaysto barnaamijyo aniga ii gaara isagu kaama sii durkaynde si fudud kaagama tegaynde aduu kugu soo hirtaadhe sidaad malag tahay ayuudhe adiga kuu sare kacaadhe waxyaabaha aan qoro bandhigyo badan baa ka qayb galay dad badan baa isoo codsaday iyadoo dadku niyad jabinayaan oo ay leeyihiin waxa ma haysan waxaan ku qanacsanaa bal in wax iigu jiraan aan wax samayn karayo hadba ubax dahsoon baan kula daba socdaayoon dalbadaa docdaaduun platformyo badan baan sameeyey aan fikradeyda ku soo gudbin jiray marka dadkeenu marka la eego qofka hal abuur kale kama xishoodaan ma tixgeliyaan ma ixtiraamaan waa dad yacni niyadjabka ayay wadaan dhalinyarada caqabado badan ayay kala kulmaan inay barnaamij inuu qofku soo gudbiyo fikradiisa mar walba oo qofku isku dayo in mar walba oo ay badato in dadku soo gudbiyaan wax barnaamijyadu bataan meelaha lagu kulmayo bataan cilmiga badanaya marka caalamka la joogo dadkooda ganacsatada ay yara jeebkooda roon yahay ayaa dhalinyarada iyo dadka hamiga la dhiirigeliya waxaan ku boorinayaa ganacsatada kaliyaata dadka in aanay lacag ka guran kaliyaata aanay jeebkooda ka fakarin kaliyaata aanay noloshooda ka fakarin ba dadka ay wax ku celiyaan oo ugu yaraan ninka dhalinyarada aad ku tahdid hore u soco aad fikirkiisa u maalgelisid
mar walbo aad maalgelin samaysidna waa mar walbo oo lacagtaada iyo jeebkaagu u sii kordhayo. dhalinyaradana waxaan leeyahay haddii aad hiigsi leedahay iyo hadaf leedahay kolley caqabaduhu waa badan yihiin. nin dhalinyaro aad tahay cid ku taageeraysaa waa yar tahay, bal adigu isku day inaad hore u socotid, isku day inaad adigu meeshii aad waddo ka jeexan karaysaba aad ka jeexato, isku day bal inaad adigu wax bedeshid, isku day inaad adigu noloshaada kaafiyi karayso. waxaa la yidhi kolka aad jawi weydo jawi samayso, adigu jawi samayso.